أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته الكرام أجمعين. قال العلامة محمد بن داود السنهاجي رحمه الله تعالى: باب معرفة علامات الإعراب. هذا متكن باب معرفة علامات الإعراب. calaamadihii icraabka aqoontoodii ayuu u baab yahay. calaamadihii icraabka barashadoodii ayuu u baab yahay. qaala almu'alifu raximah اllahu tacaala: baabu macrifati calaamaati اlicraab. haadaa midkani baabu macrifati calaamaati اlicraab. calaamadaha icraabka barashadoodii ayuu u baab yahay. baabkan sheekhu wuxuu uga hadli doonaa raximah اllahu tacaala calaamadaha icraabka sidii loo garan lahaa. in badan waxaan ku soo celcelinay markaan wax icraabaynay oo mar walbaba daruuri ah qofka wax icraabaya inuu adeegsado ereyga ah wa calaamatu kida, wa calaamatu rafci ama wa calaamatu nasbi. calaamatu waa laazim in la sheego marka wax la icraabayo. wa calaamatu rafcihi kada, wa calaamatu nasbihi wax kalaa lagu xijiyaa, wa calaamatu jarihi wax kalaa lagu xijiyaa. marka waxaa lagu xijinayo calaamaadka ma waxaanu leenahay calaamatu rafcihi addama, ma waxaanu leenahay calaamatu rafcihi alalif, ma waxaanu leenahay calaamatu rafcihi alwaaw, ma waxaanu leenahay calaamatu rafcihi hubuutu nuun. sidii habkii wax loo icraabi lahaa. idan marka baabkan baabu macrifati calaamaati اlicraab waxaa la dhihi karaa waa miftaaxu naxwi, waa furaha naxwaha. baabkani wuxuu kuu suurto gelin karaa haddii aad fahamtid abwaabta kale kitaabka ka harsan oo dhan boqolkiiba 70 inaad fahmi karto. iska dhaaf wixii aan soo marnay, bal xataa casharada noo dhiman ilaa kitaabka uu ka dhammaanayo. baabkan fahamkiisu wuxuu kaa saacida ama uu kaa taageeraa boqolkiiba 70 inaad xataa fahmi kartid casharada noo dhiman ilaa kitaabka uu ka dhammaado. baabkan baabu macrifati calaamaati اlicraab waa mixwar cilmu naxwi, waa udub dhexaadka uu ku wareegsanayo cilmiga naxwaha. cilmiga naxwaha meesha uu ku dul wareegsanayoba waa isaga. maxaa yeelay tusaale kasta oo la icraabo oo luga alcarabiya laga soo qaato baabkanaa dib loogu celiyaa. waan arki doonaa hadda ka bacdi isaga wuxuu noo noqon doonaa casharadeenna dambe in sha allahu tacaala marjic oo qof walba su-aal la weydiiye waxaa la dhihi doonaa sida aad ka soo faa'iidaysatay baabu macrifati calaamaati اlicraab. tusaalahaas ku icraab adigoo ka shidaal qaadanaya cilmigii aad ka soo baratay baabu macrifati calaamaati اlicraab. maadaama marka baabkani sidaas ahamiyaddaa u leeyahay waa inaan ictino gaara iyo ihtimaam gaara iyo dadaal dheeraada aan ku bixinno fahmidda, dhegaysiga, la socoshada baabkan baabu macrifati calaamaati اlicraab. maadaama aqoonta xataa kuwa naga dhiman boqolkiiba 70 uu fahmi karo casharada noo soo socota hadduu qofku baabkan uu fahmo. saas awgeed ictino gaara iyo danayn gaara aan siino dhegaysigiisa, fahmkiisa, la socoshadiisa. baabu macrifati calaamaati اlicraab. lirafci 4 calaamaatin. lirafci godka waxaa u sugnaaday 4 calaamaatin, 4 calaamadood ayaa godka u sugnaaday. addamatu dama u sugnaatay, wاlwaawu waawa u sugnaatay, wاlalifu alifa u sugnaatay, wاnnuunu nuuna u sugnaatay. wuxuu bilaabay sheekhu raximah اllahu tacaala calaamadaha wax lagu godo. markaan doonayno erey inaan godno, ereygaas calaamadda aan ku godi karnahay maxay tahay? wuxuu ku yidhi sheekha 4 shay ayaad ereyga ku godi kartaa. erey markaan doonayno inaan godno waxaan ku godaynaa 4 shay. kow addama, waxaan leenahay calaamatu rafcihi damatun. waa tusaalooyinka aan soo qaadanoo dhanba tanaan adeegsan jirnay. maxaa yeelay waxaan ka reebi jirnay wa calaamatu rafcihi alwaaw, wa calaamatu rafcihi alalif, wa calaamatu rafcihi hubuutu nuun. kuwaas tusaalooyinka kuma aanan soo qaadan maxaa yeeley xoogaa way adag yihiin kuwan. waxaan la sugaynay xilliga aan gaarno. markaanu wax godayno waxaa lagu hormariyaa damada
wa hiya alaslu damada iyadana asal ah saddexda kale waa farac damadu waa hogaamiyihii calaamaatu rafc waa ra'iiskii waa madaxii calaamadaha wax lagu godo liannahu maxaa yeelay shayga marka la godayo waxaa asal u ah bini aadamka maskaxdoodana ugu soo degdegaysaba in godkan caadiga ahay xarakada ah in la saaro taasaa bini aadamka maskaxdiisa usoo degdegaysa walidaalika calaamaatu rafca ayadaa damadan madax u ah sidaas awgeedaa sheekhu ugu hormariyey iyadu ugu hormariyey maadaama iyadu ay tahay asalkii walwaaw calaamadda labaad ee wax lagu godo waa waawda waxaa kaloo wax ku godaynaa markaanu doonayno ereyga inaan godno wa calaamatu rafcihi alwaawna waxbaa lagu godaa oo mararka qaar waxaad arki faacilkii aan isku ogeyn in la godo oo lagu leeyahay wuu godan yahay laakiin wuxuu ku godan yahay waaw sida qad aflaxa almu'minuun qad aflaxa almu'minuun mu'miniintii yaa liibaanay ereygaas almu'minuun waa faacilu aflaxa faacilkii aflaxa wey ilaa kuwii liibaanay waa iyaga kuwii liibaanay waa iyaga faacilu aflaxa marfuuc waa godan yahay aawo godkii calaamadda lagu goda aawo wa calaamatu rafcihi ya alwaaw ereyada qaar waxaan arkaynaa in waaw lagu godo marka waxa dhanna way noo iman doonaan sharxooda kuwa waawda lagu godo kuwa damada lagu godo sharxooda way noo iman doonaan laakiin mafhuum guud si guud waxaan usii fahmaynaa in wax lagu godo waawda wاlأlif waxaa kaloo calaamadaha lagu godo astaamaha godka ka mida aliftana waxay noqon kartaa god ayaa loo isticmaalaa oo marka ereygan la godayo waxaa lagu godaa alif sida qaala rajulaani qaala rajulaani qaala rajulaani min aladiina yakhaafuuna allah qaala rajulaani rajulaani hadda waxaan leenahay waa faacilu qaala faacilkii qaala maxaa iyagaa wax yidhi qaala rajulaani laba nin waxay yidhaaheen marfuuc waa la goday wa calaamatu rafcihi alأlif aliftaasaa god u ah sababta aliftu god ugu noqotay iyo meelaha aliftu ay god noqotana meel kasta ma ahane waan gaari doonaa in sha allahu tacaala wanuun waxaa kaloo waxyaalaha lagu godo ka mida ereyada nuun isaguna goduu noqda oo mar waxaan arkaynaa bacdu اlkelimaat ereyada qaar nuun wax lagu godayo afatu'minuuna bibacdi اlkitaabi wa takfuruuna bibacd afatu'minuuna ma waxaad rumaynaysaan bibacdi اlkitaab kitaabka qur'aanka aayadihiisa qaybo ka midana ma rumaynaysaan wa takfuruuna bibacd qaarka kalena ma ku kufrinaysin hadda waxaan arkaynaa wa takfuruuna takfuruuna waa ficlu muطaaric marfuuc wuu godan yahay litajarudihi min الnaasibi wاljaazim wa calaamatu rafcihi hubuutu nuun waa godan yahay ficil mudaaric maantana waxaa godkii u ah hubuutu nuun nuuntaasaa god u ah idan marka waxaan ogaanay marka wax la godaayo afartaas bisaa wax lagu godaa qayb shanaad maba jirto luga alcarabiya haddii la baaray qayb shanaad waa laga waayo qayb shanaad waa laga waayo idan marka carabkaaga marka uu soo maro ereyga icraabka ah oo wa calaamatu rafcihi imaa inaad ku xijiso damatun imaa inaad tidhahdo calaamatu rafcihi alwaaw imaa inaad tidhaahdo calaamatu rafcihi alأlif imaa inaad tidhahdo calaamatu rafcihi hubuutu nuun qayb shanaad ma jirto wa calaamatu rafcihi alyaau ma jirto wa calaamatu rafcihi fadxatun ma jirto afartaas bis luga alcarabiya afartaasaa wax lagu godaa idan marka afartoodu way kala xadidan yihiin wax iska furan ma aha mid walba waxaa lagu xadiday mawaadic iyo boosas gaar ah waxaan u soo hormarinaynaa damada oo iyadoo asalba meesha u ahayd oo madaxda u ahayd fa ama damatu damadii fatakunu hiya damadu calaamatan calaamo iyo astaan waxay u ahaataa lirafci godka godkay astaan u noqotaa fii arbacati mawaadica afar meelood
أي قدك علامة أقوهاتا في الاسم اسم كي علامة أقوهاتا اسم كاسو المفردي لكالي يلي والله بنا أن لقدقن جمعنا أن لقدقن اسم كلي جيسة ضمدا ما دام يدو ماشا يصلتها يدو قامنيش ضمدي الشيخ النوبي الله رحمه الله تعالى ضمدو وحي علامة أقول نغتاه كويري أفر مسألة مسألة أقوه الرئيسة الاسم المفرد اسم كاللقونية اسم مفرد محوية يا يرت ما هو الاسم المفرد محوية اسم مفرد الاسم المفرد لغتنا الصومالية مركي أن كفسر أنه عربي وأنه إيمان دوناه الاسم المفرد وحوي ومقع كليجي وسلفها من اسمها مركي لغيراه علي مقعاس علي ما اسم مفرد هو هل قف مياه مسوحا يعني والله وقف مسوى جماعة يا هذا هو الاسم المفرد بس هذا هو الاسم المفرد مسجد مركي لغيراه ما وحن نري مساجد بدن وجماعة ما لبا مسجد ما هل مسجد محوية مسجد هذا هو الاسم المفرد طريق وسداس وكلا قلم كتاب علم نحو صرف فقه بساط سيارة فرس وحصل محوي واسم مفرد لكن مركان تعريف انه اللغة العربية ما هو الاسم المفرد الذي يراه ما ليس مثنى ولا مجموعا ولا ملحقا بهما ولا من الأسماء الخمسة الصومالي هانا وسوفها من العربي هانا ساسة كو تعريف سنة الاسم المفرد محوية هدي الوراء ما ليس مثنى ووحي اللبو أنا هين لبو وحي أنا هين ولا مجموعا جمعنا أنا هين جماعة بدنا أنا هين ولا ملحقا بهما wax labadaas la haleeshiyo labada u egnaan ahayn musannan umeeka jamacna umeeka wala min al asmaa al khamsa shanta isim oo noo iman doontana aan ahayn shanta isim maxay yihiin abuuka akhuuka xamuuka fuuka duu shantaasna aan ahayn وحي شروطها أوفصدا ما تعريفك أوفصدا وحلنا هذا هو الاسم المفرد كاسا اسم مفرد ما ليس مثنى ولا مجموعا وحان لباهين جماعنا أنا هين ولا ملحقا بهما لبدودنا أن لهليشين ولبدود أن أكين مثنى جمع أن أكين وحياله حاجر مثنى حقيقي أنا هين لكن ملحق ليرا وحياله حاجر جمع حقيقي أنا هين لكن ملحق ليرا ملحقاتنا أنا هين ولا من الأسماء الخمسة أسماء الخمسة أنا هين شنت اسم ونوع من دونا ومشى ونوع شيء دون الشيخ وأما الواو فتكون علامة للرفع في موضعين في جمع المذكر السالم وفي الأسماء الخمسة وهي أبوك وأخوك وحموك وفوك وذو مال شنت اسمنا عن كم ده هيد وحي مركا وحنسله وقالني لبنا أنا هين جماعنا أنا هين laba iyo jamaacana aan u ekayn shantan isimna aan ka mid ahayn inaanu dhihi karno alismu almufrad waa ism mufrada ismkaas mufradkaa marka sida aan u fahamnay xaalatu rafca markuu joogo xaalatu rafca maxaan ula jeednaa xaalatu rafca markuu joogo waxaan ku godaynaa addama damaan ku godaynaa calaamatu rafci damatun alayna xaalatu rafca markuu joogo حالة الرفع محل ولا جدنا مرك حالة الرفع مركو جوجو ولا جدنا حالة الرفع وحوي وحالة أي واجب تهاي إن لك جده مركو جوجو حالة كاستماع اسم كمفرد كمركو تاجي هاي حالة إن لك جده أي واجب تهاي تصالحان وحن نقضي فاعل فاعل إن لك جده سو واجب ما وحن نقضي مبتدأ مبتدأ إن لك جده سنة واجب وحن نقضي خبر كإن لك جده سجن واجب إلى غير ذلك من المرفوعات يكون الله مدو مرفوعات ككلاء تسالا نسوق هذا مرك حالد لجدو مركو تاجيه أو فاعل أما مبتدأ يقول نقضه يوحي الله مده
waxaan ku godaynaa isimka mufradka الضمة calaamaةu rafcihi ضamatn ayaan leenahay damadaas marka waxay noqon kartaa dama ظaahira waxay kaloo noqon kartaa dama khafiya damo qarsoon iyo mid muuqata labada waa iska noqon karta damada iyadoo ظaahira maxaa ka mid a اجتahada الطaalibu ardaygii waa dadaalay اجتahada الطaalib الطaalib waa ism mufrada maxaa yele inuu mufrad yahay maxaa kuu caddaynaya tacriifkii iyo qeexidii hadda ka fiiri maa laysa muhanan walaa majmuucan walaa mulxaqan bihima walaa min alasmaaءi الkhamsa الطaalib muhano ma aha jamcna ma aha shantii ismna ka mid ma aha اجتahada الطaalibu ardaygii wuu dadaalay الdaalib marka hadda muxuu taagan yahay xaalad in la godo ay waajib tahay limaada maxay tahay xaaladda uu taagan yahay faacil sooma faacilna waa la godaa waajib muxuu ku godan yahay marka hal waaw muu ku godan yahay mise alalif mise dama damuu ku godan yahay اجتahada الطaalibu ardaygii wuu dadaalay see u craabinaa اجتahada ficil maadi mabniyu calى الfatxi laa maxala lahu min اlإcraab laa maxala lahu min alإcraab waxaa dhici karta inuu qofku is yihaaho اجتahada الطaalib اجتahada hadda waxaan icraabnay ficil maadi oo sawtii maalmo dhoweyd aanu soo dhahaynay oo casharka inoogu jirtay wixii hamse lagu bilaabo mudaaricaan icraabaynaa oo اجتahada hamzaba lagu bilaabaye ficil mudaaric maxaan u dhihi weynay waxaanu u dhihi weynay horta hamzadan mudaaric marka lagu leeyahay wixii hamze lagu bilaabo waa ficil mudaaric bishardi hamzadaas inay tahay hamzaة الqaطci hamzaة wasli iyo hamzadu waxay u qaybsamaan hamzaة الqaطci hamzaة الwasli waxaa la yidhaha hiya alatii tasqط fi الdarji markii hamzada xaraf kale hore looga soo qabto maba lagu dhawaaqo waa iska dhacda laguma dhawaaqo hamzaة wasli hadda اجتahada طaalib waaw hore ka geli hamzada waaw ka hormari isku qabo wاجتahada soo noqon mayso way dhacday hamzadii soo maa hamzadaas iska dhacaysa laa takunu calaamaة lilmuطaaric hamزة الwasl اlatي tasqط fi الdarji laa takunu calaamaة lilmuطaaric hamزaة wasliga iska dhacaysa taas ma aha midaan ula jeedin laakiin waa hamزaة الqadci mid kale haddana waad ku fahmi kartaaho hamzada marka lagu leeyahay mudaaricay calaamo u noqotaa waa bishardi an tufiida الtakalum bishardi inay faa'iideyso iska hadlid maala in markaan ku idhaaho ajtahidu anugu waa dadaalaha iyo اجتahada طaaliba ardaygii wuu dadaalay isku mid miyaa labada hamso tan maxay faa'ideynaya ajtahidu anugu waan dadaalay maxay faa'ideynaya الtakalum qof asagu shaksiyaddiisa isaga hadlayo idan ogo marka hamzada hamزatulqadciga ah takalumkana faa'iideyso qofka nafsadiisa uu ka hadlayo taasaa waxay tahay calaama lilficli الmudaaric taasna waa isku baraarujinayna اجتahada الطaalib اجتahada ficil maadi mabniyu calى الfatxi laa maxala lahu min اlإcraab الطaalibu faacilu اجتahada faacilna waa marfuuc wa calaamaةu rafcihi meeshaan u socna waa intaas calaamaةu rafcihi damaة ظaahiraة fي aakhirih اجتahada الطaalib hadda waxaan misaalinay damadii iyadoo banaanka taalla iyadoo qarsanna way jirtaa waxaa dhici karta damadii inay qarsan tahay sida jaaءa muusa muusa yimid oo kale jaaءa ficil maadi mabniyu calى الfatxi laa maxala lahu min اlإcraab muusa faacilu jaaءa marfuuc faacil wuu godan yahay wa calaamatu rafci calaamadda lagu godana damatun laakiin damadii hadda daahira ma dhahayno lannu isimkan waxaa weye waa alismu almaqsuur calaamatu rafci damatun muqadaraة calى اlأlif manaca min duhuuriha الtacadur waxaa u diiday in lasoo muujiyo godkii suurtagal ma ah waa cudurtooda ma suurtogelayo godkii in lasoo muujiyo idan marka waxaan ogaanay alsmu اlmufrad daa'ima xaalatu dama hadduu joogo waxaa lagu godaa addama waxaa jiray xilligii hore naxwaha markaan akrinayna ardaya waxaa la weydiiyey axbabtu waxaan jeclaystay alfiqha fiqhigaan jeclaystay bal icraab markaasuu markuu icraabay wuxuu yidhi
أحببت فعل وفاعل الفقه مفعول به منصوب وعلامة نسبه ضمة ظاهرة في آخره maxaa kugu dhacay markaan idhi maxaa kugu dhacay damatu daahir fi aakhiri wasuuna ma dhihin isim mufrada meel kasta isim mufrada meel kastuu joogo damo lama lagu godaa soo ma ahayn casharka lama lagu godaa wala fiirso wa midkaan isim mufrada marka damo la leeyahay goorma wo ya xaalatu rafca bis bas xaalatu rafcana waan isla fahamnay waxaan ula jeedno xaalatu rafcana waa isla fahamnay waxaan ula jeedno marka iska jiro markii icraab lagu yiraahdo ism mufrada asoo xaalatu jar jooga yaan damatun laga maqlay isagoo xaalatu nisba joogana yaan damatun laga maqlay daa'iman damatun marka aad ku dhawaaqaysid bishardi an yakuuna fi xaalati rafc waa inuu xaalad la godo horta taagay xaaladda iska fiiri marka hore damatun intaadan dhihin xaaladdu taagan yahay fiiri وجمع التكثير midka labaad ee isagana damada lagu godo waa jamca la yidhaaho jamcu taksiir jamcu taksiir isaguna xaalatu rafca markuu joogo waxaan ku godaynaa damaan ku godaynaa ma huwa jamcu taksiir maxaa loola jeedaa jamcu taksiir جمع التكسير وحال يراها ما تغير فيه بناء مفرده بواحد من التغييرات الستة ما تغير فيه بناء مفرده ومقعي أما اسمك قابل اسمات كيسو وإسبدلي قابك ودسني هيا إسبدلي قابك الويقين ودسنا وإسبدلي بواحد wuxuu isku bedelay mid min التغyiiraati الستة isbedelada lixda ah mid ka mida ayuu isku bedelay ma تغayara فيihi binaaءu mfradihi بواحد min التغyiiraati الستة isbedelada lixda ah mid ka mida ayuu isku bedelay fiiri marka hada huwa jamcu taksiir kana waxaa la yidhaha waa jamcu taksiir waxaan nidhi jamcu taksiir waxaa la yidhaha waa isimkii qaab dhismeedka iyo qaabka uu u dhisan yahay uu isbeddel ku dhaco isbeddelkaasina waxaan nidhi wuxuu ku iman karaa lix arrimood mid ka mida lix arrimood mid ka mida uu ku iman karaa oo isimkii mufradka ahaa jamcu taksiirka ogaaw wuxuu farac ka yahay isimka mufradka ah maxaa yeelay labo iyo jamaaca iyo mid yaa horeeya midkaa horeysa maa mufrad marka meesha isagaa madaxo isagaa asala maxaa yeelay shaygu markuu labo noqonayo ama saddex uu noqonayo kow waa ka horreeyey xisaabtuna waxay ka bilaabataa kow markaa kabacdiya labo saddex imaane idan marka jamcu taksiirka wuxuu farac ka yahay isim mufrad isimka mufradka marka qaabku u dhisan yahay waxaa lagu bedelaa isbedelo lixa mid ka mida isbedelada lixda maxaa ka mid a bitagyiiri الshakli kow isimka wuxuu isku bedeli karaa marka jamcu taksiir laga dhigaayo shaqalka bis in laga bedelo bacdu اlasmaa waxay jamcu taksiir ku noqon karaan shaqalkood ka bedesho bes shaqalkii haddaad bedesho jamcu taksiir ay isku bedelaya tusaale ahaan ereyga asad asad maxaa waaye waa hal libaax jamcan ka dhigaynaa libaaxyo badan waxaan godaynaa hamsada siinkana waan godaynaa wuxuu noo noqonaa libaaxyo badan usudaanu leenna marka usud idan marka ereyga usud muxuu yahay hadii la weydiiye waa jamcu taksiir leannahu ereygan waxaa isbedelay qaab dhismeedkiisii iyo qaabku u taagnaa oo uu u dhisnaa qaabku u dhisnaayaa isbeddel uu ku dhacay oo ereygan asad markii hore qaabku u dhisnaa waxaa weeye hamsaduna way noo kordhigneed siinkuna wuu noo kordhignaa haddana hamsadii iyo siinkii labadaba waa la goday qaab dhismeedkiyaa isbedelay marka asad usud qaybta labaad oo isbedelada lixda mid ka mid ah wuxuu isku bedeli karaa ereygu oo jamcu taksiir ku noqon karaa
binaqsin in loo geysto nusqaan oo wax laga jaro xuruufta qaybo ka mida inaan ka jarno qaybo xuruufta ka mida haddaan ka jarno jamcu noo noqon karaa jamac ayuu noo noqon karaa tusaale ahaan ereyga tukhamatun tukhamatun markaanu leenahay waa daacada la yidhah daacada waxaa la yidhaha tukhama af carabi waa hal daaco ta'daan ka jaraynaa marka jamcay isku bedelay tukham daacayaal badan shajaratun waa hal geed ta'daan ka jaraynaa shajar geedo badan uu noo noqonaa geedo badan ayuu noo noqday halkaas marka waxaan ka ogaanay isimka mufradkaa fii bacdi اlaxwaal jamc waxaaba u bedeli karaa oo jamcu tagsiir u bedeli kara in wax laga nusqaamiyo bis oo shaqalkii la bedelin qaybta saddexaad isbeddelka saddexaad biziyaada in wax lagu ziyaadiyo xuruuf aan jirin horay lagu soo daro jamcu tagsiir wuu ku noqon karaa tusaale ahaan sinwun waa sood nuun wow sinwun waa laan inaan jamcu tagsiir u bedelnaan rabnaa marka alifii waxaan ku daraynaa nuun sinwaan laamo fara badan uu noo noqdo marka maxaan samaynay ziyaado bisaan ku darnay sidaas awgeed wuxuu ku noqday jamcu tagsiir wuxuu kaluu ku noqon karaa ereygu jamcu tagsiir bitagyiiri shaklin wa ziyaada in shaqalkana aan ka bedelno ziyaadana aan ku darno shaqalkana aan ka bedelno ziyaadana aan ku darno tagyiiri shaklin wa ziyaada tusaale waxaa ka mid a kitaab markaan idhaaho waa isim mufrad waa hal kitaab waxaan rabnaa inaan ka dhigno jamc kutub badan aliftaan ka jaraynaa kaafkana waan godaynaa ta'dana waan godaynaa kutub ayaan leenahay jamcu isu bedelay jamcu tagsiir ayuu isku bedelay waxaana samaynay wax kale ma aanan samayn waa bitagyiiri shaklin wa ziyaada shaqalkiina waan bedelnay ziyaadana waan samaynay may waxaan leeyahay bitagyiiri shaklin wa naqsin dheh bitagyiiri shaklin wa naqsin shaqalkiina waan ka bedelnay waxna waan nusqaaminay ilaa kitaab aliftii meesha tiilay waan jarnay shaqalkiina waan bedelnay waxaa la mid a kitaab rasuul rusulna waa la mid rasuul waawdaan ka jaraynaa ra'dana waan godaynaa siinkana waan godaynaa marka waxaan leenahay rusul ewel rasuuluu noo ahaa shaqalkiina waxbaan ka bedelnay waawna waan jarnay iyaduna maxay noo noqonaya bitagyiiri shaklin wa naqsin haddana bitagyiiri shaklin wa ziyaada qaybta shanaad bitagyiiri shaklin wa ziyaada shaqalkiina waan bedelaynaa xaraf aan hore u jooginna mufradka waan ku soo kordhinaynaa oo horeba aan u joogin maxaa ka mid a rajul rijaal hadda waxbaan ku soo darnay soo maha ziyaadan keennay hore aan u jirin oo aliftana nooma joogin haddee horay shaqalkiina waan bedelnay oo rajul mufradka ra'da way noo kor dhigneed hadda waan hoos dhignay jiinku waan noo godnaa rajul haddana rijaal jiimkii waan kor dhignay marka wax ziyaadana waan keennay shaqalkiina waan bedelnay kan ugu dambeeya isbeddelka lixaad ugu dambeeya bitagyiiri shaklin wa ziyaadatin wa naqsin saddexdii baan isku daraynaa oo shaqalkiina waan bedelaynaa ziyaadana waan keenaynaa nusqaanna waan samaynaynaa shaqalkiina waan bedelaynaa ziyaadana waan keenaynaa nusqaanna waan samaynaynaa sida ghulaam khilmaan oo kale
غulaam غulaam hal wiil wey markii aan jamcinayno khilmaan wiilal badan laakiin maxaan samaynay farqiga u dhexeeya adiga fiiri mufradka iyo jamca غulaam qoynka markuu mufrad ahaa wuu noo godnaa khilmaan markaan jamc ka dhignaya qoynkii wuu hoos dhiganya taasi waa bitagyiiri shaklin ziyaadadana waxay nooga imaaneen nuuntan hadda khilmaan ugu dambaysa maba jooginba mufradka ghulaamuu noo ahaa aliftan hadda meesha joogtana aliftii mufradka ma aha waa alif cusub oo la keenay nusqaantuna waxay nooga imaaneen ghulaam aliftiisii waa la jaray mid kaloo cusub oo alifaa lagu soo bedelay oo jamcu uu wato tii mufradkana waan jarnay ghulaam khilmaan idan marka halkaa waxaad ka ogaatay jamcu tagsiir xaqiiqadiisii waad baratay laazim waxaa casharkan wixii ka dambeeya jamcu tagsiir hadduu qur'aanka ku jiro hadduu xadiiska ku jiro meel kale luga alcarabiya hadduu ku jiro waa inaad soo qaban kartid haddii lagu weydiiyana waa inaad ka jawaabi kartid jamcu tagsiir liannahu waan soo koobnayo jamcu tagsiir kale maba jiro luga alcarabiya haddii lagu wareegay waa la waayey jamcu tagsiir waa lixdaas bis waa maa tagayara fiihi binaau mufradihi biwaaxidi min التagyiiraat الsita isbedelada lixda ah mid ka mida ayuu isku bedelaa wuxuu isku bedelaa han nidhi bitagyiiri shaklin wuxuu kaluu isku bedelaa binaqsin bis wuxuu isku bedelaa biziyaada bitagyiiri shaklin wa naqsin bitagyiiri shaklin wa ziyaada bitagyiiri shaklin wa ziyaadatin wa naqs lixdaas wuxuu ku noqon karaa jamcu tagsiir idan marka adigaa lagaa rabaa hadda ka bacdi in jamcu tagsiir haddii lagu weydiiyo waa inaad sheegi kartid waa daruuri ayb ereygaas marka jamcu tagsiirka ah haddii tusaale ahaan lagu weydiiyo thawb waa hal maro thawb waa maro hiyaab aan ku jamcinayna waxaa lagu dhihi doonaa ogaaw waa casharadeenna soo socda lixdii meel ka geliyaa lagu dhihi doonaa hiyaab laazim jamcu tagsiir waa in lixdii meel waa inaad ka gelisid meel u yeelaa lagu dhihi doonaa waa jamc lagaagama hari doono waa jamcu tagsiir lagaagama hari doono miftaax waa hal fure mafaatiixa lagu jamcin karaa furayaal badan lixdii waa inaad meel uga yeeshid lixdii waa inaad meel uga yeeshid markii lagu yidhaaho hadda waxaan ku soo qaadanay kitaabkeennii casharadeenii hore isim isagoo mufrada haddana waxaan qaadanay falilasmaa asmaa isagoo ah oo jamca ismun waa mufrad asmaa'una jamcu tagsiir adigaa laga rabaa lixdii meel ka mid ah boos inaad u yeeshid adigaa laga rabaa ficlun afcaal ficl waa mufradkii afcaal waa jamcu tagsiir adigaa laga rabaa meel inaad u yeeshid cilmun waa hal cilmi markaan jamcinayno culum badan culum adigaa laga rabaa meel inaad u yeeshid wahaakadaa casharadaas iyo tusaalooyinkaas waxaan u qaadaynaa waa shaqo gurigii noota guriga uga soo shaqeeya hadhow haddii ilaahay subxaanaه wa taعala sukaan soo celiyo waa la isweydiin doonaa ya shaqo guri aan u qaadano guriga ha looga soo shaqeeyo waa homework waa iskuulka soo lama dhihi jirin homework aan u qaadano shaqadii guriga waa layli guryahaan uga soo shaqaynayno haddii ilaah yihaaho qof walba meesha soo fadhiistana intii ilaahay naga gaarsiiyo waa la weydiin doonaa waa la weydiin doonaa waana wax iska fudud markaad maskaxdaada fiiriso caqligaaga dersigu intuu socdo isku day inuu joogo fikirkaaga maskaxdaada isku day casharku inuu socdo inaan isla joogno oo casharka iyo masjidka caqligu uu joogo oo maskaxdu ay joogto isku day yaanan xaafadihii iyo bakaare iyo dukaamadii iyo guryihii yaanan kala aadin intaan isla joogno ilaa dadaa maqanoo safray moogta aan casharka joogin hadda waana fadhiyaan jismigoodi waa fadhiyaan ya marka yaanan kala tegin bal maskaxdanu iyo kala teginoo aan aruurino caqliga maskaxda inta casharka aan ku jirno naxwuhu waa fudud yahay haddii caqligaaga aad ku fiirisid
طيب marka hal miثaal aan ka soo qaadano ana icraabano jamcu taksiir hal miثaal اجتahada الطulaabu ardaydii way dadaaleen اجتahada الطulaabu الطulaab waa jamcu طaalib mfradkiisu wuxuu ahaa طaalib طulaab u noqday waa la jamciye jamcu taksiir u noqday adigaa lagaa rabaa hadhow adigaa lagaa rabaa الطulaab lixdii waa inaad meel ka geliso اجتahada الطulaabu ardaydii way dadaaleen waan icraabaynaa اجتahada ficil maadi mabniyu calى الfatxi laa maxala lahu min الإعraab الطulaabu faacilu اجتahada waa kuwii ficilka dadaalka sameeyey waa iyaga marfuucu وcalaamaةu rafcihi damaة ظaahiraة fii aakhirih damaة ظaahiraة fii aakhirih waxa ulajeedada dhan oo leenaha damatun taas wey jamcu taksiir hadduu xaalatu rafca joogo waxaa lagu godaa damaa lagu jeedaa damaa lagu godaa waxaan ka baxnay laba qaybood alism اlmufrad iyo jamcu taksiir jamcu اlmu'anath الsaalim jamcu taksiirka marka isaguna sidii mufradka oo kale wuxuu noqon karaa damadiisu waxay noqon kartaa dama khafiya sida jaaءa alasaara kuwii la qafaalay ayaa yimid jaaءa alasaara jamcu asiir asiir waxaa lagu jamciyaa asra iyo asaara usaarana waa la yidhah usaara ama asra ama asaara jaaءa waxaa yimid alasaara kuwii la qafaalay jamcu asiir mufradkiisa wuxuu ahaa asiir hal qof oo la qafaalay asaara ku jamci ama usaara dheh hamsada gud labadaba waa la akrin karaa jaaءa ficil maadi mabniyun calى الfatxi laa maxala lahu min الإعraab usaara faacilu jaaءa marfuucu وcalaamaةu rafcihi damaة muqadaraة calى الأlifi manaca min duhuurihaa الtacaduru idan waxaan ogaanay jamcu tagsiirka رubama takunu damatuhu damaة ظaahira wa rubama takunu damaة khafiya marna way qarsoonaan kartaa marna waxay noqon kartaa mid banaanka taala wa jamci الmu'anath الsaalim kan saddexaado isagana damada lagu godo wa jamci اlmu'anathi kii la dhadigeeyey jamciisi way jamcaasu asaalimi ee nabad galay jamaca dhadiga ah waa haweenka jamaacada haweenka xaalatu rafca markay joogaan waxaan ku godaynaa addama damaa lagu goday ma huwa aljamcu اlmu'anath الsaalim maxaa loola jeedaa muxuu yahay jamcu اlmu'anath الsaalim jamcu اlmu'anath الsaalim waxaa la yidhaha maa jumica bitaa'in wa alifin masiidatayn maa jumica bitaa'in wa alifin masiidatayn waa wixii lagu jamciyey bitaa'in wa alifin ta iyo alif masiidatayni ee dheeraad ah oo la siyaadiyey weligaa isaga kan calaamadiisu waaba iska daahiro qof walba ayaa fahmi karto alif iyo ta dheer ayaa ugu dambaysa weligiisba jamcu mu'anath الsaalim tusaale ahaan الsamaawaat alaayaat muslimaat mu'minaat qaanitaat caabidaat saa'ixaat saa'imaat mutasadiqaat mu'minaat hindaat waxaa aliftay taada ugu dambaysa o dhan waa jamcu mu'anath الsaalim jamcu mu'anath الsaalim marka jamca noocaasa hadduu isaguna noo joogo xaalatu rafca xaalad in la godo ay waajib tahay hadduu noo joogo waxaan ku godaynaa addama damaan ku godaynaa xaalatu rafca waxaa loola jeedana waan isla soo fahmnay in loola jeedo xaalad ereyga in la godo ay waajib tahay sida faacil iyo mubtada iyo khabar iyo wixii la mida jamcu اlmu'anath الsaalim idan marka jamcu اlmu'anath الsaalim wuxuu iska leeyahay mawaad ama canaasir ama usuul laga sameeyo oo uu ka soo kaco marka horeba maadooyin laga sameeyo ama canaasir laga sameeyo mufradaad uu ka soo bilowdo ayuu iska leeyahay jamcu اlmu'anath الsaalim tusaale ahaan jamcu اlmu'anath الsaalim horta see u dhisnaa see u samayn kara adigaa dhisan kara adigaa samayn kara
waxaad ku dhisi kartaa ereyga mufradka soo qaad alif iyo ta dheer ku dar bes gacantuu kugu jira jamcu mu'annas saalim hindo ereyga la yidhaha soo qaad alif iyo ta dheer ku dar hindaadu noo noqona aayatun soo qaad alif iyo ta ku dar aayaat wahaakada saasaad u samey zaynaba soo qaad alif iyo ta ku dar zaynabaat sayidatun soo qaado sayidaat marwooyin gabdhaha marwooyinkaa sharafta leh sayidaat sayidaat wahaakada wax walba isimka mufrad soo qaad alif iyo ta dheer isaga daro intaa haddaad samayso jamcu lmu'anath asaalim gacantuu kugu jira jamcu lmu'anath asaalim marka waxaa laga sameeyaa ereyo kooban ereyo kooban ayaa laga sameeyaa ereyadaas ilaa culimmada naxwaleyda qaar waxay gaarsiiyaan 8 erey in laga sameeyo 8 erey in laga sameeyo koow waxaa laga sameeyaa wixii ta leh ereygu hadduu ta leeyahay alif iyo ta dheeraadaa lagu daraa un ta'da waxaan ula jeednaa ta gaab hadduu leeyahay sida faadimatu maxaan leenahay faadimaat alif iyo ta dheeraan ku daraynaa erey kasta oo ta leh waad ka samayn kartaa erey kasta oo ta leh mu'minatun mu'minaat muslimatun muslimaat caabidatun caabidaat wahaakada waxaa kaloo laga samayn karaa ereyga hadday ugu dambayso alalifu almaqsuura alif gaaban alifu ta'niis oo gaaban alif gaaban sida tusaale ahaan dikraa dikraa waano dikrayaat aan len dikrayaat alif iyo ta dheeraan ku darayna alif gaaban hadduu wato waa laga samayn karaa alif dheer hadduu wato alifu ta'niis almamduuda taagan sida saxraa khadraa xamraa shahlaa waa laga samayn karaa saxraa'a dhulka bannaankaa saxra la yidhaha saxraa'a alif dheera wataa soo ma aha waad ka samayn kartaa alif iyo ta'dii jamculmu'annas saalim uu wadan jiray ku dar uun saxraawaat 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 waxaa kaloo laga samayn karaa mudakarun musaqarun limaa laa yacqil erey rag ah oo laakiin magac u ah maa laa yacqil waa mudakar macnawiya iska jir mudakar raggii oo xaqiiqiga loolama jeedo markaad fiiriso ereyga macno ahaan ragu macnihii ragguu leeyahay waa mudakar oo ligayri caaqil mudakar musaqar mudakar la yareeyey oo la taskhiiriyey ligayri caaqilin haddana magac u ah gayru caaqil waxaan caqli lahayn waana la yareeyey bishardi waa in la yareeyo taskhiirka wuxuu noogu iman doonaa kitaabkan kama hadli doono kutubta kale ee naga horeysa in sha allahu tacaala uu noogu iman doonaa marka erey macnihiisu mudakar yahay oo la yareeyey weliba mudakarkaasna mudakar maalaa yacqila ah oona caqli lahayn waa laga sameeyaa sida jabal jabal waa yani jabalka weyn buurta weyn jabal markaad fiiriso macno ahaan waa rag wuxuuna magac u yahay maalaa yacqil ilaa buur jabal caqli ma lahan maalaa yacqil inta aadan ka samayn horta marka hore soo taskhiiri yaree jabal yarow dheh jabal yarow markaad dhehaysid jubayla la yidhaha jubayl marka hore soo dheh jubayl markaa kabacdi way marka hoosaada hadda kuu fududa hadda shaqadaadi waad qabsan kartaa jubaylaat ayaan len markaa kabacdi alifya ta aan ku dareyn markii la yareeyo kabacdi jubaylaat dirham oo kale waa mudakar limaa laa yacqil isim mudakara oo maa laa yacqil dirham waa shilin marka hore intaadan samayn horta taskhiiri durayhim dheh kabacdi samee marka durayhimaat ayib waxaa kaloo laga samayn karaa
مؤنث بغير تاء مؤنث بغير تاء ومقع هوين لكن أن تاء لهين مقع هوين أو أن تاء وذنين سيدة زينب أو كلا زينب تاء مالها سماها لكن ومقع هوين يمقع وياها علم وياها زينبات هند هندات كسرين كرتا وحاكا لو كسرين كرتا ما كان وصفا لغير عاقل ما كان وصفا لغير عاقل وحي تلمان وحن عقل لهين سيدا أياما معدودات أياما مالمه يالله تلمامي مالمها سو معدودات لتريي إذن مركب معدودات وحي تلمان ويهين مالمه عقل ميليهين ما لا يعقلون أياما معدودات انت صدق وحانا هيسنا هدي اللي اسكو علي والله كوبا واشن هدي اللي فاهينا ألفتا قابلنا مد هدي لغا تريو ألفتا دارنا مد كلا لغا تريو اللي حانا هيسنا سماها انت اسمو شيء مسوش عنا طيب انت اسمركا سيادو حفلسو وحلقو سو كوبي وعلماء النحوة كسو كوبين قبي أما شعر لغو سو كوبي وقسه في ذي تاء ونحو ذكرى ودرهم مصغر وصحرى وزينب ووصف غير العاقل وغير ذا مسلم للناقل قبي قاسيكو كذا وقبي ومن بحر الرجز قوي من بحر الرجس أي علماء النحوة كسوكوذا وقسه في ذي تاء ونحو ذكرى ودرهم مصغر وصحراء وزينب ووصف غير عاقل وغير ذا مسلم للناقل انت صدق شيء قبل قاسل وسوكوذا شيخ علماء النحوة كم إذا هيلديه جري أبو الإسحاق الشاطبي قبل إسكاله شاطبي شيخ قارئ معها وكتاب شاطبي إسكاله قالوا لما جيد الشيخ كلو شاطبي مركا وقسه وحكير وقياس قادو جمع المؤنث السالم في ذي التاء تاء متك صاحبك وقياس قادو وحي تاء لك سمي ولا جيدا وحي هذا سو شرحيني وي ما انتودن وقسه في ذي التاء ونحو ذكرى وحد كلو وقياس قادو كوري ذكرى او ذكرى محول جيدا الف قابن الف مقصوره الف تانيث مقصوره وحيله وقسه في ذي تاء ونحو ذكرى ودرهم مصغر وصحراء درهم مصغر محول جيدا وكي أنو دهيني مذكر لتصغيري وما لا يعقله درهم مصغر وصحراء صحراء أو قياس قادر صحراء وكلها الألف الممدودة كان دهيني وزينب ألالية الشعر كدرتيس مركا قبيس وزينب بالتنوين لكن مركا نحوها ليرا والزينب هذا آخرين أنه ما لا ينصرف وحكو عطفينها في ذي ذا سكو عطفينها والزينب زينبنا وقياس قادو كيرو تيانو شيغيني ومؤنث بغير تاء ووصف غير العاقل ووصف غير عاقل وصف غير عاقل وقياس قادو وكانوا لين أياما معدودات وغير ذا مسلم للناقل وغير ذا مسلم للناقل intaan wixii aan ka ahayn wuxuu kiri qofkii soo guuriya ayaa loo nabad gelina waxa kale bacdu nahwiyin ay ku ziyaadiyeen khumasiyun lam yusma' fihi jam'u taksir kullu khumasiyin lam yusma' fihi jam'u taksir waxa kale jam'u insaan laga sameey karaa yiraahdeen ism kasto shan xaraf ka kooban oo jam'u taksir aan lahayn erayo waxa jira jam'u taksir aan laga sameyn khumasiyun kullu khumasiyin lam yusma' fihi jam'u taksir eray kasta oo shan xaraf la ah oo jam'u taksir aan laga sameyn sida hammam wa musqushi hammamat waxay erayga hammam shan xaraf uu ka kooban yahay hammam
شن حرف ككوبين هدي حمام مركل ليه شن حرف ككوبين هاي إسليهن ورواو أفر محيتها شنت الشيء حمام ميم كاسو شدية إريجو هدو شدية هنا اللغة العربية لبا حرف على حسابها محيل لبا ميم ماشى الله يسكت شديو حمام مركز تاسو حوية هي خماسي حمام حمامات اللي مركز كسمية حمامات حمامات محيل واشان حرف له أن لقوا مغلن جمع تكسير جمع تكسير وحكى له لقسم يا إلهين كل اسم سدر بذي اسم كستو ذي لقوا بالله ذو وهدنا علمه ميل قار اللو يقان ذو لقوا بالله سيدا بش اللي يراه ذو القعدة بش هذا أن كجرنو وإسلامك ذو القعدة ومقع بلاد بشاسو عالم كويه markaan samaynayno hadda aan jamcinayno dulqaacda jamc muannath asaalim qaybta hore sadriga aan jamcinayna markaasaan leenahay dhawaatul qacda bilaha dhawaatul qacda dhawaatul qacda waxa kale oo laga sameeyaa ismun sudira bibnin wa huwa calam ism kasto ibni lagu bilaabay haddana calam ah oo meel gaar u ah sida ibnu cirsi ابن عرس ابن عرس وبالك طبع عديها اللي يراه وحال يراه ابن عرس والدورة دعونا طبع عديها ابن عرس بنات عرس صدرقة قيب توران كسميننا بنات عرس نالين بنات عرس مركب وحان كزيادي ني قبيقا كل خماسي لم يسمع فيه جمع تكسير هي اسم لقب الله ذو هي اسم لقب الله ابن saddexdaas haddii loo geeyo shantii gabayba sideed uu noqon intaas way waxa culimada ay sheegeen naxwaha oo yiraahdeen waa laga sameyn karaa jam'ul muannath as-salim hadhow qaacidadan wixii ka dambeeya waa inaad soo saari kartid meel kasta oo carabiga uu uga jiro jam'ul muannath as-salim haddii lagu weydiiyo lagu yiraaho samee jam'ul muannath as-salimna waa inaad maskaxdaada ka sameyn kartid hadda ka bacdi jam'ul muannath as-salim haddaad samaysana sideedan waa inaad meel ka gelisid iska samee maaha markaad samayso waxaa lagu leeyahay sideeddii xagee ka yah sideeddii aad soo baratay meel ka geli jamcu tasir haddaad samaysana waxaa lagu leeyahay lixdii meel ka geli waaya misaal marka maxaa ka mid a jaaءat الsayidaatu jaaءat الsayidaatu marwooyinkii way yimaadeen gabdhihii marwooyinka ahaa way yimaadeen jaaءat الsayidaatu الsayidaatu waa faacilkii jaaء waa godan yahay waxaana lagu goday aلdama muraadkeena waa intaas see u icraabaynaa jaaءa ficil maadi mabniy calى اfatxi laa maxala lahu min alicraab wataaءu calaamaة التa'niis waxurika biاlkasrati liiltiqaaءi الsaakinayn ta'dan waxay ahayd in la reebo mabniy calى sukuun ay ahayd maxaa loo hoos dhigay iltiqaaءu saakinayn laba xaraf oo reeban ayaa laga baqay الsayidaatu faacilu jaa marfuuc faacilna wuu godan yahay wa calaamatu rafcihi damatun ظaahiratun fii aakhirih calaamadda lagu goday waa damada aakhirka ka dambayso idan marka waxaan ogaanay qeybtii saddexaad oo lagu godayey damada jamcu اlmu'anath asaalim qeybta afraad ee ugu dambaysa walficli ficilkiina calaami u ahaadaa damada ficilkaasoo almudaaric mudaaric ahaa aladii ficilkaasoo lam yatasil biaakhirih ficilkaas aakhirkiisa shay-un waxba uusan la xiriirsan ficil mudaarica oo aakhirkiisa uusan waxba la xiriirsan isagana xaalatu rafca hadduu joogo waxaanu leenahay calaamatu rafci dama damaan ku godaynaa hadda ficil mudaarica waan soo barannay waa wixii lagu bilaabo afar xaraf mid ka mida alhamzatu wataa wanuun walyaa afartaa mid ka mida haddii lagu bilaabo sheekh wuxuu ku yidhi ficilka mudaaric marka la godayo waxaa lagu godaa isagana dama laakiin hal shardiyuu u xiray aladii lam yatasil biaakhirihi shay mudaarica waxaa shardiga aakhirkiisa in
waxba aan lala xiriirin waxaas uu diidan yahay maxay tahay sheekh uu leeyahay waxba waa inaan lala xiriirin waxa weeye waa alifu الtaثniya wa waaw اljamaaca wa yaau اlmu'anahati اlmukhaaطaba alif oo laba tilmaamaysa waa inaan lala xiriirin alif laba tilmaamaysa haddii lala xiriiriyo mudaarica alif laba tilmaamaysa oo nidhaaho yafcalaani labadiyaa wax samaynaya yaqra'aani labadiyaa wax aqrinaya xukunku waa isbedeli doonaa waa in haddana shay unta uu diidan yahay waxaa ka mid ah uula jeeda haddana waawuljamaaca waa inaan lala xiriirin haddii waawuljamaaca lala xiriiriyo sida kii aanu dhehaynay aayaddii aan usoo qaadanaynay afatu'minuuna bibacdi اlkitaabi watakfuruuna bibacd afatu'minuuna waa mudaaric laakiin maxaa lala xiriiriyey waaw jamaaca markaas xukunkiisu gooniyuu noqon doona waa noo iman doonaa damatun ma dhehayno wuxuu kalu diidan yahay walam yatasil aladii lam yatasil biaakhirihi shay yaau lmu'anaha almukhaaطaba ya oo haweeney keligeed lagula hadlay ya-daas haweenkana waa inaan lala xiriirin ya-da haweenka waa inaan lala xiriirin tusaale ahaan taqra'iina islaan yahay adigaa wax akrinaysa waa ya-da islaanta tusinaysa ya-daasna waa inaan lala xiriirin haddii ya-daa lala xiriiriyo mudaarica xukun kale u yeelan doonaa waa noo iman doonaa marka aladii lam yatasil biaakhirihi shay saasaan u fahmayna mudaaric markaan ku godayno damatun waa inaan waxba lala xiriirin waxba waa inaan lala xiriirin waa inuu joogo haddana xaalatu rafca xaalatu rafca waa inuu joogo maxaan ula jeednaa waa in horay aysan ka gelin mudaarica xaraf wax kordhiga alxuruuf الnawaasib waa inaan hore laga gelin haddana alxuruuf اljawaazim xuruufta wax reeba ayb maxaa ka mida tusaale ahaan waxaa ka mid a yanjaxu almujtahidu yanjaxu waxaa guulaysta almujtahidu qofka dadaala wuu guulaystaa yanjaxu hadda fiiri waa ficil mudaaric wuu godan yahay shuruuddii ka fiiri aladii lam yatasil biaakhirihi shay horena lagama gelin nawaasib iyo jawaazim idan marka ficilkan mudaarica waxaan ku khasbannahay inaan ku godno damo yanjaxu ficlu mudaaric marfuuc waa la goday litajarudih min الnaasib wاljaazim wa calaamatu rafcihi damatun daahiraة fi aakhirih calaamadda lagu goday waa dama halkaasaan u soconnaa almujtahidu faacilu yanjax waa faacilkii yanjax faacilna waa marfuuc wa calaamatu rafcihi damatun daahiraة fi aakhirih hadda ereygan almujtahid hadda ka bacdi wixii calaamatu rafcihi damatun aad dhehaysa waa in afartan mid ka mida uu noqdo alism اlmufrad jamcu tagsir jamc muanad saalim alficl اlmudaaric aladi lam yatasil biaakhirihi shay hadda almujtahid waxaan idhi waa faacilu yanjax marfuuc calaamatu rafcihi damatun limaada dama aan u dhahnay afartii kee ka mid yahay alism اlmufrad waay ayb almujtahidu faacilu yanjax marfuuc wa calaamatu rafcihi damatun daahiraة fi aakhirih idan marka halkaas cashar waxaan ku qaadanay muhim noo ah oo kaasoo ah in calaamaatu rafca aanu barannay hal shay oo ka mida oo ah damadoo degaysa afar meelood damadoo degaysa afar meelood alism اlmufrad wa jamcu taksiir wa jamcu اlmu'anath asaalim wاlficl اlmuطaaric aladi lam yatasil biaakhirihi shay wallah subxaanaه wa taعala